waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ugu martiyahay aqoonyahankan haatan muuqaalka sidin muuqdo horteeda fadhiya aqoonyahan ku soo dhawow stuudiyaha wakaalada cashuur media أحمد وأد وأدوهي عشير ميدي أد وأدوهي وكالة ما تخص بوطي تكمل علبو ولا بحرنتي هذا وين تعلم هذا علبو إلى ما تخص بوطي أد وما تكسر واي حي بشوفر بام هذين داونسا بشكل السوشيال ميديا يعبر بشيء كداونسا المارك هو الرئيسة إصبر كوكو يقان يكوه كوغم قف كاتر سوشي ورهين مقعي هرت أنت مو غير مقعي وكران اسمه سلامية مقعي هو محمود بالله عبد الصالح waan gartay magaalada in badan baad ka maqnay bal marka ugu horeysa waxaad noo sheegtaa waxbarashadaadii koowaad meeshaad ka bilowday cashuur waxbarashada iyo dugsiga iyo dhexe waxaan ku bilowday iskuulka kulmiyeed elbu koowaad ilaa sideedaad secondary-ga waxaan ku dhigtay jaamacadda public secondary school oo afartii secondary ku laday jaamacadeedana waxaan ku bilaabay University of Bosaso qaybteeda Garowe baan ka waday waan gartay muddo dheer baad ka maqnayd ceelbu marka dhalinyaradii aad iskuulaadka ka wada qaadeen oo ceelbu ku sugnayd iyadu intii aad ka maqnayd magaalada ceelbu sidee ayuu kuu soo dhaweeyey wallahi kullay nin magaaladiisii baan ahayo dadku iyo bulshada iyo dhalinyartu aad bay soo dhaweeyeen nin magaaladiisii baan ahay markaa si fiican baa lay soo dhaweysay sidii ku munaafsanayd baa lay soo dhaweeyey waayahay waxaad nala joogtay maalmihii ugu dambeeyey bishii barakeysanada ramadaan si aad bulshadaadii maalmaha ciidda iyo farxad loola soo qaato aad uga timid waxaana ku barbar socday ceelbu baad xog ku samaysa qiimayn waxaa siitay buugaag iyo qalmaantoodii oo adoo suuqyada la wareegaan ku arkayay oo markaa qiimaanta samaynaya waxaana kaa codsaday inaad mar igu timaadeen istuudiyaha wakaalada cashuur media waa iga aqbashay taas aad baan kaa madcinayaa waxaana kaa rabaa inaan ka warayso bal qiimayntaad ceelbu ku samaysay iyo wixii kaa soo baxay maxaa marka ceelbu ku aragto kaa soo baxay wallahi cashuur waa su'aal isweydiin mudan hadda ceelbu marka ay wallahi waxyaalo badan oo qiimeyn ayo soo baxday ceelbu waa magaalo weyn oo baaxad leh mujtamac badan ku noolyahay waa magaalo maanta horumar badan ku tallaabsatay horumarna u dhimeeya maanta ceelbu waa magaalo leh biyo macaan maanta afar rig bay leedahay waxa kaloo ay leedahay waxa weeye waa dalagii beeri waxay horumarka ku tallaabsatay ceelbu waxa weeye maanta dalagii looga baahnaan lahaa dalalka kale in laga doonto oo dalalka ugu dhowday maanta in ceelbu leeyahay wax walba khudaartii beerta ka soo baxayaan oo waa horumar ay ku tallaabsatay dhinacii beeraha dhinaca xoolaha magaalada aad waxay u tirtay xoolaha marka ceelbu wallaahi waxaan is oran karaa horumar badan oo ku tallaabsatay horumarna waa u dhimay okay maxaa sababka kala tiri kartaa ceelbu maanta ay mustaqbalka iyo waqtigan haddaan joogno iyo dib ay ka tiraysaa wallahi axmedow ceelbu wax ay tabayso maanta haddaan qolobka dul istaago ceelbu waxay aad u tabaysaa inay degmo hesho maanta ceelbu 2025 baa la marayaa walow ay u qalantay berow inay degmo hesho maanta 2025 baa la marayaa oo maanta inay degmo hesho kala deegaan shaqeynay hesho maanta horumarka aan ku leeyahay waa ka dimanyahay waa maanta aan baqaadni lahaa oo halka ka soo socon marka ceelbu maanta waxay u baahan tahay degmo oo si ay kula deegaan shaqeynay fiican u hesho oo maanta magaalooyinka ceelbu la leexan ka hadda xingalool oo kale waxay leedahay balooyin degmo aad u shaqeynay marka hadda xingalool oo kale dadkeeda u doonay u shaqeeyo marka waxa ku dhiirigelinaya nagasha iyo bulshada degmada waxa ku dhiirigelinaya in magaalada sidii degmo looga raadin lahaa oo looga heli lahaa oo loo heliyo oo xeerkii degmadnimo way buuxisay marka ceelbu waxay aad ugu baahan tahay inay degmo hesho waan gartay adigu dhalinyaradii kula faca ahayd ee iskuulka dhigan jirtay ee maanta aqoonyahanka hadduu dugsi sare ka soo baxay iyo hadduu jaamacad ka soo baxayba oo ceelbu ku noolay oo intii aad ka maqan ceelbu joogtay hore u joogtay marka adigu ma kala hadashay ceelbu sidii degmo lagu raadin lahaa weliba dadka aqoonyahanka ee maanta soo baxay ceelbu sidii degmo ugu raadin lahaayeen wallahi axmedow dhalinyarta badankood waa la hadlay in way harsanayeen de wax bootay degmada u fiican way inaan maanta degmada maqaado degmooyinka la facaha ay gaadho marka waxna waa la hadlay waxna way harsanayeen insha Allah waan gartay qolka ugu dambeeya inagoo barnaamijkan dadka ku bixinayn bulshada maxaad kala kulantay intay ku xijirtay wallahi bulshada waxaan kala kulmay soo dhaweyn iyo maamuusne horumar ay ku tallaabsatay degmada oo shaqeyn wacan de marka waxaan rajeynayaa bulshadu inta ka badanba ay magaranaysa horumarka halka ka sugayaan oo shaqeynta degmada halka ka sugayaan
oo degmadu ay noqoto degmooyinka ma garanaysaa maanta gobolka Sanaag uu faaweyn oo soo noqda oo wixii degmadu ku horumar karto laga raadiyo marka waxyaalo badan oo bulshada wanaagsan oo kala kulma insha Allah marka ugu dambeyntii maxaad bulshada Ceelbu ugu baaqaysaa bulshada Ceelbu ugu baaqayaa inay ka wada shaqeeyaan marka magaalada wada jirka midnimada wanaaga wax walba magaalada kor u qaadaya sumcadeeda kor u qaadaya oo wanaageeda kor u qaadaya inta waa kula dhiirigelinaya in magaalada wada jirkeeda iyo horumarkeeda aadna u salaamayo way intaas ayaan kusoo go'naa barnaamijkii gaarka ahaa oo maxamuud maanta martiigu ahaa waxaan leeyahay maxamuud mar kale iyo mar dambe ku soo kala dacasho